السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر دواد دمان أخيارة يوتيوب channel ضيح تي في مركو أروح عن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان تينا ميركستو أتكسو جنتين ب وحمان تربينا شرحه سان هراء الشيء أما مركن channel كأنفرني channel موضوع أوفر توح وها أنا أحب شرحه مادوينك حسابها فيزيكس بيولوجي كيمستري أما ناتشرال ساينس مادوينك لو يقانو أن ما أنت واحد سوق قاعدين يا مادام مالك يجوه ريسيتين فيديو صوت دوبه حساب دكسيو هوسه أما كلاس كشنات متبسيطو يقانو لكن إنه دكسيو هوسه حاول نقانو كوبات إلا سديدات لكن إلا شنات كون دكسيو هوسه أنا هانتي تسان قاو إن كستو حسابتهم تشتشبكو أي كوب بلاوتها إلا كلاس كشنات يميران إنه كبلاوتان فيليا مركا ما أنت waxaan sharaxi doonaa hadii ilaahay inagu simo saa hadda halkan inooga muuqata waxa weeyaan 3 hoos dhiga 4 iyo 8 hoos dhiga 7 marka xisaabta koreeya waxa loo yaqaanaa tan sare taalo waxa loo yaqaanaa koreeya tan waxa la hoose فرتي دو دقيقتهم قرون ساي آخري كذا وإذا كل الوقت مغلي سلام فريا مركا هذا بقولك حساب صار هاي قبل كل وش قيام يا سويتين مغا نمبر 1 waxa uga shaqeyn kartaa xisaabta markay sidan tahay 3 hab 3 hab ay uga shaqeyn kartaa hadda aan ku tusiyaa ila soco habka koobaad markay xisaabta tahay 3 oo loo dhigo 4 loo geeyay 8 oo loo dhigo 7 haddii aad doonayso inaad si fudud uga shaqeyso oodan iswareerinba ma garanaysa isweyne raadi iyo waxa adoon galin batan 7 ku dhufanaysaa natana 7 maadaama 8 hooseeyo kan 4 baad ku dhufanaysaa tan 4 baad ku dhufanaysaa marka waxa looga dan leeyahay tan halkan 7 loogu dhufanayo halkan aan 4 ugu dhufanayno waxa weyn rabnaa inaan hooseeyo isla kiisano hadda hooseeyo waxaan isna halkan 8 dhinacan 8 marka inagu isdhimin bayno hadda ma garanaysa isu geyn karaa 8 bayno halkan haysanaa halkaas waxa noqonaysaa 12 7 lagu dhuftay 3 oo 12 8 lagu dhuftay 4 waa 32 marka loo geeyo 23 oo 53 oo loo dhigay 28 marka tirada jajabka markay tiro noocan oo kale ku soo baxdo macni la isma qayban karo waayo tirada kore waa kiisin hoosena waa dhabar kisiga dhabarna kisiga dhabarna saaloo soo taqaana aan ma aqaan laakiin kisiga dhabar waxa weey macna tirada kisinta leeyahay waa ha u qaybsantaa hal iyo nafteed oo kaliya macna hal iyo nafteed oo kaliya markaan ka wada tusaalaan waxaan soo qaadanayaa 5 is waxa u qaybsantaa oo kaliya waa hal iyo 5 waa laftirkeedii marka tiradaas ay leedahay kisi laakiin 4 oo kale 8 oo kale 8 waxa u qaybsantaa 2 4 tan waxa u qaybsantaa 2 iyo hal sidoo kale tan hal ba u qaybsantaa marka kuwan isir badan ma laha ay hal isir hal iyo nafteedan ba u qaybsantaa marka 53 noocaas ka mid tahay oo ma garanaysa trooyinka kisiga ku jirta laakiin 7 u qaybsantaa 4 ba u qaybsantaa hal ba u qaybsantaa 2 u qaybsantaa marka
toddoba u qaybsantaa wax noocaas jidka kalena yaan kusii fogaan weliba yaan isku sii wareerin toddoba oo loo hoos dhigay afar oo loo geeyay 8 loo hoos dhigay toddoba isweydaar baa isugu dhufanaysaa ama cross multiplication wax la yidhaaho xariijintan kugu sameeyo waa aragtaa waan falayaa halkan falaadh u socota tana taasi ku dhacaysa tana ku dhacaysa saddex lagu dhufto toddoba waa 12 oo hore loo haysanin loo geeyay marka waxaad qaadanaysaa calaamadda u dhaxaysa qaacidadana waxa oo kaliya ay ma garanaysaa oo kaga shaqeyn karta waa u geedaya ka jirta isku dhufada iyo u qaybid waa ka madax banaan tahay kuwan iyaga afar lagu dhuftay 8 waa 32 inuu nari oo hore noo haysan labada hoose kolkay isku dhufana waa 28 marka waxaan meesha ku haysanaa waa 53 oo loo dhigay 28 jidka kale inuu imaanayno isna wuxuu yahay waa isna waxa soo qaadanayna oo su'aashana ma soo qaadanayna way sababtoo wax macna ama sameynaysa hadaan su'aalo kala duwan hadaan soo qaato iyo hadaan mid uu soo qaato wuxuu meesha lagu bixinayo waa tusaale iyo qaabkii looga shaqeeyo loo sharaxay class ma joogno kama wada shaqeyn karo waxaan rabnaa uma garanaysaa inaan waxoogaa sharaxno qaabka qofku uga shaqeyn karo waay tan halkan baynu iska soo dejinaynaa halkan ma garanaysaa waxaynu raadinaynaa marka ugu horeysa niyadeeda waa inaan ma garanaysaa kusoo dhacdo maxaa u qaybsami kara 4 maxaa u qaybsami kara 7 waa inay isweydiisaa haddii aad weydo oo bad garan weydo wax labadooda u qaybsamay isku dhufa labadooda 28 ilaa ma noqoto 30 iyo maxaan dhahaa 23 meeyaan dhiin halkan ma garanaysaa hooseeyo halkan 4 loo geeyay 23 hal de garan maysid imika laba tiro ma garanaysaa tiro u qaybsamo muhiimadu waa inaad labadooda isku dhufato oo tiro 23 oo lagu dhuftay 30 sababtoo ah kolka labadan tiro isku dhufato oo taa u qaybiso waxa ku soo baxaysa 30 kolka 23 u qaybiso tirada xalan hayso waxa ku soo baxay 30 kolka tan u qaybiso 23 waxa ku soo baxaysa kabacdina qoraayo baad ku dhufanaysaa marka tan waa sidii oo kale 4 oo loo 8 loo qaybiyo 4 si wacan aan saxo waa 7 lagu 3 ku ilaa hore noo haysan 4 oo lagu dhufto waa u geeyay calaamadda la soo degaysaa yar awee 24 sideed ku dhuf 32 hay kula mid 53 oo loo qaybiyay 28 marka jid kasta mar jid gaaban iyo jid dheer hataa martaba ma garanaysaa hadii aad meel u socoto waa isla halkiin laakiin waqti ma qaadanaysaa ilaa meesha aad socoto waad gaaraysaa haddii aan hal magaalo ku wada socono hadda aanu jid gaaban maro adna jid dheer marto waa isla iyadii uu ma garanaysaa marka aanu jidka ugu gaaban ee ugu fudud islaahay ka fududaya kuwan kale processka la maraya ma garanaysaa halkan isku dhuf halkan marka kuwan ku dhufato bas korayaan baad soo geenaysaa hooseeya mid baad qaadanaysaa laakiin waxa ugu muhiimsan inaynu helay halkan 3 jawaabood oo isku mid ah waa tijaabin kartaa haddii lacala xataa aad ma garanaysaa istiraab sabab ma garanaysaa saddexdooda isku mid ku noqon karaan sababtoo ah waxaan soo qaadanay waa hal su'aal ah sababtoo aan u soo qaatay taasina waxa uu eegaan halkaas su'aasha oo kaliya aan u isticmaalay si aan u hubino inay ma garanaysaa saddexda jid markaan maro inaan saddexda jawaabood ma garanaysaa jawaabta hore hal mid la mid inay noqoto hadiiba ay wax khaldan oo ay soo baxaan imika halkan oo kale hadii noo soo bixi lahayd halkaynu ka helo 53 60 ama 63 de waxbaynu ka khaldan
xisaabteen inaynu dib ugu noqono weynu soo hubino marka sababta awgeed baa usoo qaatay inay magaranaysa halkay su-aasha oo keliya haddii aad wax su-aal qabto ama inaad soo su-aalsaad u baahan tahay waxaad igala soo xiriiri kartaa emailka kor baan ka sheegaya ama hoos baan kusoo qori doonaa insha allah Samir Abdi 447 gadaal baan waraaqda kaga soo qoray Facebook sidoo kale waa igala soo xiriiri kartaa Yamin Yusuf waa igu qoran Yamin Yusuf messenger wax waa iga soo weydiin kartaa marka waxaan ku leeyahay intan video lamida dambe aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa insha Allah salaamullah fadlan subscribe like iyo waxaad oo dambe comment kulli waxa ugu muhiimsan waa ra'yigiina marka aad baa u mahadsantahay marka ra'yigaaga hoos ku reeb